wasiirada ka soo jeeda gobolada Awdal Sare iyo Gabiley ee galbeedka Soomaaliland waa wasiiro kamid ah golaha xukuumadda Xisbul Xaakimka talada haya ee kulmiye warbixinteena waxaynu ku eegaynaa saameynta isaanka iyo maamul ee golahaasi wasiiradu ay ku leeyihiin miiska golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliland saameynta siyaasadeed ee ay ku leeyihiin guud ahaanba gobolada galbeedka Soomaaliland tan iyo intii xukuumadda xisbiga kulmiye ee waqtigeedu dhamaaday ay hanatay talada dalka waxa isbedel tiro badan ay ku yimaadeen wasiirada ka soo jeeda gobolada galbeedka Soomaaliland hadaba wasiirka ugu horeeya waa wasiir Cabdilaahi Ibrahim Habane wasiirka waxbarashada Soomaaliland waa siyaasi muddo ku dhow rubuc qarni dhex fadhiyay golaha guurtida Soomaaliland balse dhamaadkii sanadkii hore loo magacaabay xilka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland isla markaasina dardar cusub la soo dhex galay saaxadda siyaasadda dalka gaar ahaan miiska golaha wasiirada balse marka la eego saameynta siyaasadeed ee uu ku leeyahay gobolada galbeedka Soomaaliland saameyn mug weyn ku leh siyaasadda gobolada galbeedka Soomaaliland waxaana uu inta badan kasban karaa siyaasiyiinta iyo dadka bulshada gobolka Awdal ku dhaxleh magaca iyo mansabka waynu ognahay in waxbarashadu ay tahay aasaaska nolosha dalbadalka waxbarashadiisa xoojiyo ee awoodda dhaqaalihiisa u huro ayuu horumarkiisuna ku xulan yahay wasiir Umar Sheekh Maxamed Faarax Umar Yare waa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland ee uu dhawaan madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo soo magacaabay wasaaraddaasi horey waxa uu ahaa askari ka gaaray darajada korneyl muddo badan ku noolaa qurbaha kaasi oo xukuumadda xisbiga kulmiye u magacawday inuu ka mid noqdo golaha wasiirada Umar Yare saameyn siyaasadeed kuma dhexleh siyaasadda gobolada galbeedka iyo guud ahaanba Soomaaliland inta badan kama warqabo wacyiga siyaasadeed ee ka jira dalka kaasi oo loo aanaynayo badan ku noolaa qurbaha waxana muddadii uu xilka ay soo ifbaxayay tabashada reer Awdal iyo saameynta taban ee uu ku leeyahay qaar kamid ah kaabayaasha dhaqaalaha hadal uu ka soo yeeray kadib markii madaxweyne Siilaayo uu ka soo qayb galay xafladii furitaanka jidka degmada Dila iyo kala bayris ku xidhayay wadadii baa soo gaabatay saacad baa noqotay Hargeysa dawladda soo farsan ma jirto marka way gaabatay saacad baa heeshan 4 saacadood baa ahayd awal wax maanta ugu culus oo la qabtaana ma jirin Dr. Ali Xamed Jibriil waa wasiirka xiriirka golayaasha iyo tiknoolajiyadda cilmi baarista Soomaaliland waa wiil dhalinyaro ah oo ku firfircoon si dadkaan aqoonta badan u lahaynina ay ku tilmaamaan nin fudud waana wasiir ka dhex muuqda wasiirada kale ee ka soo jeeda galbeedka Soomaaliland xiliyada miiska golaha wasiiradu ay ku kulmaan kaasi oo wasiir Ali Xamed waa mas'uul jaan qaada hadba dabaysha siyaasadeed ee Xisbul Xaakimka kulmiye guud ahaanba isbedelka ku samaynayo waana مسؤول دنتا قرنك كهوريسيا إنه إلى شذا كرسيجيسا حنا الله أوران كرا وأنا وسير أودع النقول أما ويرتا كصوبة حكومة الصوماليلاند إكو أدن قبل هذا قلبيت كصوماليلاند سدوا كلنا وحا وقفر دودوبي هاي مركا اعتمادو أريمها دناها قبل كحكومة دا وسير ذا كلا كسوتش ذا قبل كأوضل لما نصادالين كرو إنه هنان كرو هو قامت السياسة ذا قبل هذا قلبيت كصوماليلاند مستقبل كدو iyo ka dheerba gaar ahaan reer Awdal ninka maanta ugu baaqaya inuu xoriyay wax uga fiican inuu maanta bulshada reer Awdal ee maanta danyar tahay meesha taalay inuu wada ka shaqeeyo inuu ceel ka shaqeeyo inuu caafimaad ka shaqeeyo waxba hadii wax qabanayo baahi badan baa taala oo qabanayo hadii uu wax tabanayo ma sheeganayna waxa looga baahan isagoo dalkiisa iyo magaaladiisa iyo beledkiisa iyo dadkiisa dhex jooga inuu sheegto cid la hadli kartay cid xorey cid wax yeeli kartay ma jirto محمود شيخ عبد الله عقه ووزير كعصب وزارة بوسطة يسكارسية Soomaaliland أو دوان حلك مدحوين Siilaayo soo magacaabay waa siyaasi waayeel ah oo muddo badan ku dhex jiray siyaasadihii kala duwan ee dalka gaar ahaan xilligii xukuumadii madaxweyne Daahir Rayaale ee xisbigii udub oo ka gaaray la taliyaha gaarka ee arrimaha madaxweyne Daahir Rayaale waqtigiisii gaar ah uu gala talin jiray gobolada galbeedka Soomaaliland
waxaana uu muddo dheer maamulayay xafiiska maamulka guddoomiyaha gobolka Awdal kaasi oo muddo 8 sano ah fadhiyay xilka guddoomiyaha gobolka Awdal 8 sano. Maxamuud Sheekh Cabdulaahi Cige waa mas'uul siyaasi ah oo rugcadaya kaasi oo in badanna ka dhex muuqday siyaasadda inta badanna aanan ka warqabin tabashadii dhex martay dadka gobolka Awdal iyo xukuumadda kulmiye waqtigan kala guurka ah ee xawliga ku socdana dabaylaha siyaasadeed ee aanan la garanayn inuuna ka dabaalan karo iyadoo oo faraq weyn u dhaxeeyo xukuumadda xisbiga udub iyo xukuumadda xisbiga kulmiye sidaas darteedna maadaama uu yahay waayeel aan la jaan qaadi karin siyaasadda xisbiga kulmiye ee ku salaysan sanqadha suldhabaalaha soo jeedka iyo socodka badan ee xisbiga kulmiye ku caan baxday mana heli karo dhageysiga iyo u dhaganuglaashihii xukuumaddii udub ee marjaceedu ahaa oday ka sheekee كذا محمد داير عبد الله ونسود وضياشة صلاطينتا علماء دليلهم جعلوا كسياسي ودي لها جعلوا وين كسيا قلت كنت داريا وحي رايد انه صي ودا كرينا على قداس وزير عبد الله فارح ميراني ووزير كوزارة عيارها الصوماليلان ومسؤول كسو جيدا gobolada galbeedka Soomaaliland waxa uu horay uga soo shaqeeyay xukuumadihii kala duwanaa dalka Soomaaliya muddo koobanna waxa uu ahaa gudoomiyihii gobolka Salal taasi oo xukuumadda xisbiga kulmiye u magacawday isku shaandhayn madaxweyne Siilaaye sameeyay waxa uu qabtay booska wasiirka wasaaradda ciyaaraha waxaana dul hooganaya qabiyo dhamaystirka koobkii ciyaaraha gobolada Soomaaliland waana mas'uul inta badan u janjeera hirgelinta awaamirta xukuumadda xisbiga kulmiye ee gobolka Salal sidoo kalena waxa uu uga dhogan nugul yahay mas'uuliyiinta kale ee ka soo jeeda gobolka Salal ee xukuumadda kulmiye ka soo jeeda saamaynta siyaasadeed ee ku leeyahay xisbiga kulmiye waa mid uu guud ahaan ba iska yar kaasi oo inta badan taageero xudud aanan uga keeni karin gobolkaasi inkasta oo dadka qaar ay ku tilmaamaan inuu taageero badan u hayo xisbul xaakimka kulmiye balse istiraatiijiyadda siyaasadeed ee masabka xukuumadda kulmiye uu yahay mid la jaan qaaday isbedelada Cabdirashiid waxa leh Cabdirashiid nin maaragtay khiyaaro iska shaqaystuha in ba soo lugayso waxba laga dhigayaa lagu yiri ya boor buu yimiday wali boor Cabdiraxmaan ma dhaaf Cabdirashiid ma dhaaf madaxweynuhu soo tagay Cabdirashiid ninkii yiri baa dalka uu ka baxay si kastaba ha ahaatee xukuumadda xisbiga kulmiye ee dalka Soomaaliland muddada haysay ayaa ku sifowday xukuumadda horumarisay dhammaan kaabayaasha iyo horumarka dhaqaalaha iyo dhismayaal tiro badan kana hirgelisay gobolada bartamaha galbeedka iyo bariga Soomaaliland Axmed Diriye Ciltire Raya TV magaalada Boorama